Madaxweynaha muddo-xiliedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa Sabtidii shalay ka baaqday ka qaybgalka xafladda caleemo-saarka madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle. Arrintaasi oo noqotay hadal-haynta bulshada isla markaana su'aalo dhowr ah la iska weydiiyey. Farmaajo sanadkii u dambeeyay wuxuu isku koobay Ereteriya iyo Itoobiya, taasi oo keentay in Soomaaliya ay noqoto saaxiib iyo olog la'aan dunida, gobolka iyo ugu dambeyntii qas gudaha ah. Haddaba, sheekadan waxaan ku eegi doonaa waxyaabihii ugu waaweynaa ee Farmaajo uu wajahay. Farmaajo iyo gobolka. Soomaaliya waxaa daris la ah saddex dal oo kala ah Kenya, Itoobiya iyo Jabuuti. Labada madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo Ismaaciil Cumar Geelle ma fiicna xiriirka ay la leeyihiin Farmaajo, isagoo Nairobi xiriirka u jaray. Hiil walaalka ugaba hiiliyey Asmara, una arka Jabuuti dal cadow ah, isla markaana danta Soomaaliya aanay ka shaqaynaynin. Farmaajo iyo Afrika. Midowga Afrika hay'adihiisa kala duwan oo ay ku jiraan Golaha Amniga oo fadhigoodu yahay Addis Ababa, xafiiska Midowga Afrika, Soomaaliya iyo xitaa howlgalka AMISOM waxay si cad uga hor yimaadeen damaca Farmaajo muddo kordhinta, iyadoo ergey gaarana u soo magacaawday Soomaaliya si loo helo wada hadal saamileyda siyaasadda loona qabto doorasho degdeg ah. Farmaajo iyo beesha caalamka. Marka laga tago in Farmaajo uu ku hungoobay isku day kasta oo uu galaangal ku samayn lahaa gudaha Maraykanka kuna booqan lahaa dalkaasi, Farmaajo markii uu 2 sano ku darsaday waxay isku dhaceen diblomaasiyiinta shisheeye ee ku sugan gudaha Soomaaliya, taas oo keentay 2 tallaabo inay qaadaan reer galbeedka, gaar ahaan dalalka biilka maamulkiisa bixiya, iyo sidoo kale miisaaniyadda 60%. 1. In laga goosto kaabigii la siin jiray. 2. In loogu hanjabo cunaqabatayn. Arrimahan oo ka dhigan in uu la kulmayo go'doomin dhanka reer galbeedka ah. Farmaajo iyo maamulada Soomaalida. Soomaaliya waxaa ka dhisan 6 maamul marka lagu daro Somaliland. Waxaa xusid mudan in 3 ka mid ah maamuladaasi kana taliya dhulka ugu weyn Soomaaliya aanay Farmaajo salaanta iska qaadin, taas oo ku tusinaysa siyaasadda arrimaha gudaha heerka ay ka joogto madaxweyne Farmaajo. Farmaajo iyo baarlamaanka. Hay-adaha dowladda, gaar ahaan baarlamaanka federaalka, wax uu u kala jabay 2 qayb. Sababtana waxaa lahaa Farmaajo. Aqalka sare oo ka mid ah baarlamaanka wax xiriira lama laha kan golaha shacabka, taas oo ka dhigan in labada dhinac ay meel kala joogaan. Farmaajo iyo ciidanka. Waa markii ugu horreysay oo la arkay ciidamo ka gadooday madaxweyne. Taliyaha booliiska gobolka Banaadir, taliyayaasha ciidamada ku sugnaa 2 Shabeelle iyo ciidamada gaarka ah, ilaa filla Soomaaliya loo jirsaday 1 kiiloomitir, laguna qasbay in uu ka noqdo muddo kordhinta ilaa ciidamada la mideeyo. Farmaajo iyo musharaxiinta. Waxaa intaasi dheer, waxaa ka aamin baxay musharaxiintii la tartamayay, iyagoo u arka in uu yahay keligii taliye oo aan ogolayn inuu qabto doorasho hufan oo xor iyo xalaala. Ugu dambeyntii, ka baaqashada Farmaajo ee caleemo-saarka madaxweynaha dalka Jabuuti waxay xiriir la leedahay go'doomintaas oo uu kala kulmay dunida, gobolka iyo intiisa kale, isagoo maanta ay ku soo hareen oo keliya la taliyayaasha gaarsiiyey heerkaasi.